Assalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada janalka. Maanta waxaan idin haynaa warbixin xiiso badan oo ku saabsan mustaqbalka xiddiga Chelsea Enzo Fernandez, iyadoo warar cusub ay sheegayaan in Real Madrid ay si weyn u dooneyso saxiixa. Si kastaba ha ahaatee, Chelsea ayaa qiime aad u sarreeya dul dhigtay ciyaaryahanka reer Argentina, taasoo ku qasbi karta Real Madrid inay heshiiska ku darto qaar ka mid ah ciyaartoydeeda. Haddaba yaa noqon kara ciyaartoydaas? Warar ayaa sheegaya in Real Madrid ay xiiseynayso Enzo Fernandez halka Chelsea ay ku qiimeynayso xiddigan lacag dhan 120 milyan. Chelsea waxay aaminsan tahay in qiimahan uu yahay mid macquul ah maadaama Enzo uu si weyn u horumariyay tan iyo markuu kaga soo biiray Benfica bishii Janaayo 2023, lacag dhan 106 milyan. Inta uu joogay Stamford Bridge wuxuu noqday mid ka mid ah khadka dhexe ee ugu wanaagsan Premier League, isagoo sare u qaaday sumcadiisa iyo qiimihiisa suuqa. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo Real Madrid ay ka mid tahay kooxaha ugu qanisan dunida, maamulka kooxda ayaa la sheegay inaysan diyaar u ahayn inay bixiyaan 120 milyan oo dhan si ay u helaan Enzo Fernandez, taasi oo sababtay in la filayo in heshiis kasta oo suurtagal ah lagu daro ciyaartoy kale, gaar ahaan iyadoo tababaraha cusub ee Chelsea uu yahay Xavi Alonso oo horey ugu soo shaqeeyay Real Madrid, isla markaana si fiican u yaqaana ciyaartoyda kooxdaas. Ciyaaryahanka ugu horeeya ee la hadal haya waa Tchouaméni. Warar ayaa sheegaya in Real Madrid ay diyaar u tahay inay iska fasaxdo Tchouaméni haddii ay taasi kordhinayso fursadaha ay ku heli karto Enzo Fernandez. Muddadii uu Xavi Alonso kooxda maamulayay, Tchouaméni wuxuu ahaa mid si joogto ah loo isticmaalo, wuxuuna ciyaaray 90 daqiiqo buuxa 13 ka mid ah 17 kulan ee ugu horeeyay ee La Liga ee Xavi Alonso uu maamulay. Laakiin dhammaadka xilli ciyaareedka xaaladdiisa ayaa isbedeshay kadib bishii Abriil wuxuu si buuxda u ciyaaray hal kulan oo kaliya, wuxuuna kursiga keedka ku dhameystay kulankii ugu dambeeyay xilli ciyaareedka. Iyadoo 2 sano ugu harsan yihiin qandaraaskiisa, Real Madrid ayaa laga yaabaa inay Tchouaméni ku darto heshiiska si ay u dhinto lacagta ay ku bixinayso Enzo Fernandez. Inkastoo Tchouaméni aanu lahayn awoodda weerar iyo gool dhalineed ee Fernandez, haddana awoodiisa difaaca iyo jir ahaan xooggiisa ayaa ka dhigaya ciyaaryahan si fiican ula shaqeyn kara. Moses Caicedo, ciyaaryahanka labaad, waa Arda Güler. Tan iyo markuu kaga yimid Fenerbahce sanadkii 2023, Arda Güler waxaa loo arkayay mustaqbalka kooxda Real Madrid. Ka hor imaanshaha Xavi Alonso, xiddiga reer Turki waxaa la kulmay niyad jab iyo waqti ciyaareed yari, laakiin Alonso ayaa sare u qaaday doorka, wuxuuna ka qayb galiyay dhammaan kulamadii La Liga ee Xavi Alonso maamulay. Arda Güler oo hadda 21 jir ayaa dhaliyay 3 gool, wuxuuna bixiyay 6 caawin 17 kulan oo uu saftay isagoo ka ciyaaraya meelo kala duwan. Laakiin markii dambe xilligii Alvaro Albiol xaaladdiisa way isbedeshay, waxaana ku adkaatay inuu ciyaaro 90 daqiiqo oo buuxda kulamada horyaalka. Inkastoo 4 sano uu harsan yahay qandaraaskiisa, haddana Arda Güler waxaa la tartamaya Frank Mastotomano, Endrick iyo sidoo kale Nico Bass oo laga yaabo in dib loogu soo celiyo kooxda. Sababtaas aawadeed, waxaa jirta suurtagalnimo uu mar kale ula midoobi karo Xavi Alonso haddii Chelsea iyo Real Madrid ay wada hadallo galaan. Ciyaaryahanka saddexaad waa Gini Hudson. Inkastoo uu yahay midka ugu adag in lagu daro heshiiska, haddana Real Madrid waxay weli qiimeyn ku sameynaysaa mustaqbalkiisa. Waxaa la filayaa in kooxda ay la soo saxiixato Ibrahima Konaté, isla markaana ay qandaraaska u kordhiso Anthony Rudiger, taasoo keeni karta in Hudson uu noqdo daafac afraad marka dhammaan ciyaartoyda taam yihiin. Hudson ayaa Real Madrid kaga soo biiray Bournemouth heshiis gaaraya 50 milyan, wuxuuna fursado badan helay xilligii Xavi Alonso. Hase yeeshee, tan iyo markaas waxaa ku adkaatay inuu si buuxda u caddeeyo qiimahaas. Waxaa sidoo kale la sugayaa aragtida Jose Mourinho iyo sida uu qiimeeyo doorka Hudson ee kooxda. Chelsea ayaa horey u dooneysay Hudson ka hor inta uusan ku biirin Real Madrid. Sidoo kale, Blues waxay weli raadinayaan daafac dhexe oo cusub oo khibrad u leh Premier League. Sidaas darteed, haddii wada hadallada Enzo Fernandez ay sii socdaan, Hudson waxa uu noqon karaa mid ka mid ah magacyada lagu daro heshiiska. Waxaa hadda muuqata in Real Madrid ay wajahayso caqabada ugu weyn haddii ay rabto saxiixa Enzo Fernandez. Chelsea ma muujinayso wax rabitaan oo ay ku dhimayso qiimaha xiddigan, taasoo ku qasbi karta Real Madrid inay bixiso ciyaartoy muhiim ah oo si ay heshiiska u hirgalo. Haddaba adigu maxay kula tahay haddii Real Madrid ay rabto Enzo Fernandez? Kee ayaad u aragtaa inuu yahay ciyaaryahanka ugu habboon ee lagu daro heshiiska? Tchouaméni, Arda Güler mise Gini Hudson? Fikirkaada noogu reeb qaybta faallooyinka. Haddii aad ka heshay warbixinta, ha ilooba inaad like saarto muuqaalka, subscribe gareyso channelka si aad ula socoto wararkii u dambeeyay ee ciyaaraha.